warbixin yarkaas iyo markii cudurkan uu bilowday sida hadda laga dhawaajiyay oo dalkeena lagu dareen ku horeeyay midba 16 iyo 15kiiba ra'iisul wasaaraha qaranka maalin ganacsatada habeen isugu kaayeeray runtii si adagaan habeenka u wada hadalnay markuu la hadlana maalintii waxaan kulan ku qabanay hotel Shamow oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo culamaa diinka iyo dhakhaatiirta iyo ururada bulshada aan isugu yeernay meeshaas waxaa ka soo baxay guddi ka kooban 17 qof oo 3 qofna ay culimada lahayd 3na dhakhaatiirta ay lahayd 4na ay ururada bulshada lahayd 7na ay ganacsatada ahaayeen guddigaas oo ilaa hadda fadhigiisa oo hotelka yahay Shamow waxay guddigaas ku xirmeen guddiga qaranka ee coronavirus oo hadda xafiiska wasaaraha laga hago oo wasiiradii iyo aan isku wada jirno meeshaas marka waxaa ka bilowday in oo link fiican oo xiriir halka ka sameeyno waxaa kaloo ganacsatada ay qayb ka noqotay wacyigelinta oo runtii meesha ugu muhiimsan sida hadda laga wada dhawaajiyay ay tahay ganacsatadu waxay bixiyeen qaybta telecommunication-ka telefonadeena rinkiisa waxay u bedeleen wacyigelintii ay u isticmaaleen oo waa aragtay markastoo telefoon aad dirto markiiba waxa kugu bilaabanaya si coronavirus si looga hortago si la isaga daaweeyo waxa uu noqonay marka xusuusin joogtaa maalintii 12 milyan in ka badan codkaasi gaara marka waxay ku tusaysaa si fudud marka wacyigelintii oo fudud inay qayb halkaas ay ka bilaabatay waxa ugu badan oo cudurkan looga hortagi karo waa wacyigelinta iyo fadhiga guryaha marka waxa moodaa xoogaa culays kale wuxuu keenay in dhaqaaliga xaqiisa marka cuntadii in aydan guryaha in la dhigto ay noqoto anaga marka meeshaas ganacsatada si gooni ah noo saameeyna waxa baqdin kale marka ay naga gashay dhinaca cuntooyinka inaan ka taxadarno marka kayd fiican dalku ma lahan kaydkeenaan isfiirinay waxa la noqon karaan fiirinay runtii waxaan moodaa ilaa 3 bilood hadda rajadeenu aad u fiican tahay shidaalka kale waa yaala waana noo soo socdaa aadan isugu filanahay alxamdulillah dhinaca cunooyinka waxaan isleenahay ilaa 3 bilood waa iswadi karnaa inkastoo cabsi ay jirto markii wixii dadku ay urursadaan aad isleedahay xoogaa ama daba go'aana qof walba wixii xoogaa kor u qaadis bilaabatay kadib waxaan go'aan isla gaarnay xafiiska wasaaraha in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsataduba in arrimahaas xal laga gaaro halka laga gaaro sida wasiirka maaliyadda oo ka dhawaajiyay waxay noqotay in canshuur dhaaf wax un la sameeyo si ay ganacsatada laftigoodu aan wax loo kaydsanin midda dambe oo raqiista ah ay dareen u geliso dadkii waa runtii oo ku maadsan yahay wasiirku wax badan iyo shaqo badan ay ka qabteen waana meel fiican ay hadda maraysaa waatan hadda laga dhawaajiyay in 15 ay bilaaban doonto insha Allah hadii la iraado arrintaas marka waxaa noo dheer diyaaradaha istaagay iyo socodka oo wax walba xayirmay ganacsigu wuxuu ku dhisnaa lacagaha cash-ka ee dalkaani ma jirin bank to bank wax loo dhoofiyay inta badan waa yaraa waxaan wax ku diri jirnay cash-ka diyaaradaha lagu qaado diyaaradihii waa istaageen waxaa naga xirmay marka in ganacsiga dibadda si wax loogu keen lahaa badeecado badan oo dekada ku jira oo midalan markaad LC furato oo 30% aad bixiso 70% kale marka badeecada timaada laga bixin jiray Dubai iyo meelaha lamid ah ama wadamada kale lacagihii loo shubi lahaa istaagay noqotay mar lacagta meel lagu diri karo mala xawaaladii waa istaageen bangiyadu waa taagan yihiin waxaan xiriir la sameeynay marka bangiga dhexe oo runtii wasaaruhu gacan laga siiyay iyadana markii dambe waxaan isla soo qaadanay bal in la ka kaalmeeyo lacagaha dawladda dibadaha u yaala hatta iyada inaan kala xawilano hadii wax kale la waayo inaan iyada kala xawilno oo tan dibadaha u taala anagana loo wareejiyo anaguna halkan ka bixino maadaama dalkeena deeqa lacag kaashi ay wax ku soo socdaan aan isleenahay ama la kala wareejiyaa dhinacaas marka waa socdaa dadaalkaasi waxa ugu daran marka oo iyada laftigeeda oo nala fasax waxa kamid ah diyaaradaha cargo-ga ah oo aan islahayn bagaashka iyo daawooyinka qaar iyo maxaan ku iraahdaa badeecooyinka qaar oo contractiyo oo hilbay iyo cumaan iyo oo jiro diyaaradaha ay qaadi jireen jira oo iyadana aan ka codsanay golaha wasiirada nala kana aqbalay mid u dambeysay diyaaradda Ethiopian Airlines xoogaan lagu daahday aakhirkiina shalay ayaa loo aqbalay in Ethiopian Airlines ay shaqo bilowdo oo runtii diyaarad weyn oo cargo-ga aan isleenahay badeeco badan dibadaha lagu keeni karaa ay kamid tahay alaabta gacmaha la isaga dhaqo oo daawadaas yarta oo $1 $2 la geli jiray in $10 gaarto waxa ugu sabab ah kala go'aas yare suuqa oo ku naawaan waxyaalaha lagu keeni karo diyaaradaha kamid tahay waxyaalahaas marka waxyaalaha hadda aan u diyaar garoobeyno isleenahay wax badan laga qaban karaa waxa kale oo cabsida kale ay sii tahay bishii Ramadaan 24 bisha aan rajeynayna iyadoo inay dhalato oo iyadoo ay iska ayba mar walba in raashinka suuqa aad looga doonto marka bisha ay dhalato awla coronavirus wax loo xareysanayay hadii Ramadaan ku darmana cabsi kale ay bilaabanaysaa laakiin waxaan isleeyahay waa ka gudbaynaa insha Allah
waxaan kaloo ku guuleysanay sida hadda wasiir ganacsi uu ka dhawaajinayo beeraleydeena maanta oo waxaa jira bangi Acrobanki la dhaho oo beeraleydu ay leeyihiin oo ganacsataduna ay isticmaasho wuxuu bixinayay maanta lacag yar oo beeraleydu ku maalgelinayo oo loogu talagalay dalaga sanadkan in loo bedelo maxaan ku radaa galey iyo masage iyo digir iyo si aan isugu tashano oo aan ku tashanin cuntooyin dibadaha ka yimaada markasta marka waxa alxamdulillah barnaamijkaas inuu maanta baxay wasaaradda ganacsiga anaguna waa ka wada tashanay beeraleydana asaasaan isla qaadanay arrintaasna hadda shaqadeeda waa ay socotaa insha Allah haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa dalaga guga ee hadda noo bilowga ah inuu isu bedelo in cunto dalkeen inay noo soo go'do oo aan barano waxaa jira aad dhibsanaysa laakiin khayr ah waxaan baran doonaa marka inaan cuntada dalkeena isticmaalno cunto badan oo dalkeenana ay soo go'do insha Allah haddii ilaahay yiraahdo madaxweyne waxa ugu daran oo rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxa waaye dhinaca amniga wadooyinka la xiray iyo xoogaa isu socodka magaalada inkastoo qayb ka tahay wacyigelinta haddana ganacsatada waxay soo jeedinaysaa dadkeenu waa cagta ku nool waaye in waqtiga sida hadda xalaba laga dhawaajiyay oo shalay shirki call conference-gii oo shalay golaha wasiiradii iyo ganacsatada iyo culimadii ay iskula jireen wasiirka amniga uu soo jeediyay ay ahayd in habeenkii 2 saac wixii ka dambeeya bandooga laga dhiga laakiin maalintii aan ganacsatada laga xirin shalay iyo daraad khudaartu aad u dhibaneed markay imaanayso magaalada annagoo waxaanay ay awalba iska yaraayeen haddana intiirada loo ganacsanayo haddii ay si xirmaan waxaa moodaa culaysa imaanaya dhinaca kalena caafimaadkii taxgelintiisa uu leeyahay waxaan rabnaa marka wacyigelintii iyo dhaqaalihii iyo wixii dhan la isku dhinac wado waa run ganacsatadu waxay u diyaar garoobaysaa xilliga ramadaanka iyo xilligan dhibaatadeeda sida hadda sheekha uu ka dhawaajiyey bisha ramadaanka oo bil raxmadeed ah inaan iyada laftigeeda dadkeena inaan kaalmayno oo waliba dadka IDPs-yada oo roobabkan hadda ay soo socdaan waa u diyaar garoobaynaa guddigaasna waa noo jiraa waana ka shaqeynaynaa